Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelka Fearless Females Incorporation hay'ad oo samafal bilowday 2019ka. Videoka may ka mid ah oo muuqaalka ka bilownay caafimaadka maskaxda. Videoka afraad way kan videoka saddexaad may ka sheekaynayn PTSD murugti dib xanuun oo kinkeeyo kinkasheenaw. haddii wada videokas intaysine bas dayso channelkan haddii like subscribe share dhanana like garay subscribe garay gambalaalkana riix sideeda ku ogaato markii video cusub sadhiyo videokana may ka sheekayaane murugta oo intergenerational trauma afkan waaye kaas meelka weydiya batan iyo PTSD ba iska mid ahaan way meelka sheekee dhibaatada waalidka samareena oo ay hada dhibaato injeeyase caruurta oo ama caruurtiyoba PTSD kadhiyaase. Murugta intergenerational trauma maybe markii waalidka ilo kulamoona dhibaato oo weli aan ka baasne oo caawitaan daawo aan qaadine dhibaatadaas ay ungudawaasa hada caruurtiyo dhibaatadana may dhiyaase sid sheegi markeeda waalid eta caawitaan aan weydiine has daawoyne then dhibaatadan ilmooga dhiyaas iyo bulshada dhanba ka dhikarte. Tusaale ahaan waalidiinta markay sakaxeena dagaalku Soomaaliya may dhibaata samareena sidii sheegay dilmaan kufsi iyo meesha ay soo koreena dhanba saka baxeena minin dun iyo waxaas dhan jidka iyo dareerana meed arageena oo aan dawoolinayne dhibaatooyinka ay ka samareena because sabab ayaka oo horumarna inay iska daawayoona then sida iyo ilmoosha ila dhaqimaayona dib unka kooye se ilmoogay dhibaatada unkasada haddii ani dhibka ani samari ilmoogayna see ad dhahoyte iswarsadoyte mada dhibaatayaalka aniba samaray ani dil araga ani kufsi araga ani saan aragay ilmoogayna se dhibaata unka kooyayana qowdi calaamada koowad oo ilmooga oo unka guduwa dhibaatadan mayway adi sidii dhaqimaaso dhaqankaada waalidka ahaa codownima ahaan ilmooga indhooga ka aragaasa ka sheekayoona marawaadayoona then adi because ilmooga man sheegayto waxay masqanta ka jirto waxay dareemoyte then ilmo may dareemayana ina oo ina shal confusion ka qaade because waalidta waxay marooyo ma ogsinyo inaankana may dareema ina oo waalidsa aan jeclayna ahaan tii saddexaad haddii waalidka oo dhibaatadan aan masqantis ka jirta ilmo may dareem oo for example tusaale ahaan inaanka hadeeda oo inaanka walbahara gale because aawshe ama aadis aragoy fikira ka jiraan maanta dhan xanaagoyn inaanka walbahar anxiety develop gareeye anxiety way atani lisin sheega videokan kale videoka shanaad inaanka markii oo intergenerational trauma hayso iska markas ma aragaaso wal oo gadaal iyo aragaayona ama kale ami wal adi oo gadaal markii wiinadoona aragaayana maylikanka baahanya aday waalitahan ina caruurta jecel iyo xariir iyo wanaag ina oo siito markii oo yarayeena haddii saas aan yeelne because of intergenerational trauma inaanka marka usu weynado may adeeg unkanagada in asaga oo dadka kale wanaag ila dhaqamo ama naakadas ama nin guursato ina oo wanaag is dhaqan waayona because sabab unaqadaase intergenerational trauma waxay eka oo gurishada ka koreena mininsha hadana ila bahaayana maldahooyo waalidka kan kas iyo maak un sameeyo iyakaba dhibaata qaweena dhibaatadii weli daawo sidii dhahay ana hadaay oo videoyaalka kale ka dhahay malis daawoyne ayaka daawo masa sameyne oo ama maka hadalna dhibaatana ay ka samareena ilmooshana without iyaka aan ogsanayne ilmona dhibaatadii un transfer un baas gareeyona salaka jooga kare salaka sabab kare oo salaka muudu kare dhibaatadan oo traumaga ay oo ilmo intergenerational trauma ay murugta ka hadal I know waalid eta ogsayna waalid etana ina ilmoogin protect garaytona ilmoogin oo dhibaato dhan ina aan deena rabtana laakiin haddii inaanka ila kood karayna xaaska ila kood had naagta un sheeg dhibaatada marota iidakinka caawi karta ama kale adana ninka un sheeg wadi masqanta kunkasanaqnaqado iskan fahama communicate garay adiyo naagta wadawitaana weydi again haddina ilmoogin markay yarayeena jecel bara okay dhawaay sida ila hadala ila baarama iskan fahama
ilmo markay yarayeena jecel tusaase markii ninkan 15 jira markas way adayooba zamaani oo markii yaraay sabarti la kala dhaqime jirayaalkan dhan la sheegoyna unu muslimin alxamdulillah salaadiinaan dhaafta salaada halan dhaafne ilaahay hala tuugo salaada hala dhaaf sidii ilaahay lanka talagalina hala tuugo jirayaalkan qaar haddada ilaahay ku fogta iyona zaidka sabraarayana zaidkin adagkin kana qadaayana sideed oo faysato so jiro wrong way but caawitaan hal karta lika caawiya qofka caafimaad haddii usuu qabo aragtay bulshada wal un qawada bulshadana naka Soomaali ana ina waajiba ina fahanno murugtada iyo caafimaadka masqanta ina oo zaid anfaxana waa sidii oo iska protect garayno dhibaato dambe saana ka dhamaayane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh